waxay tii ninkayga jooga haloo wacali ninkeedii baa la waan ninkeedii socda imaaday waxa la islaantada dacwo loo qabaa wuxuu islaantada dacwo loo qabaa anina hal igu daro dacwo kale amaariyo hadda ka hor waxa jiri jiray nin garsoora ah oo tuulo dhan garsoorka ah ninkaasi waxa la nooleed hooyadiis oo ahayd qof cajis ah يعني عجز قف aqoonin waa hooyada ah oo adigu 90 ilaa 100 gaartay oo sariir lagu dul hayo waxa dhacday ninkaas subaxii shaqada ay jiray laakiin intuusan aadin ka hor wuxuu sameey jiray laba ficil oo aad u wanaagsan ficilka koowaad waxay tahay inuu hooyadiis xanaano u sameeyo oo u qubeeyo oo cunno siiyo kadibna ayadoo isku aadan oo nadiif ka tago ficilka labaadna waxay tahay jidka ayaa waxa fariisay jiray nin miskiin ah sidaas darteed quraacda uu sameeyo ayuu wax ka siin jiray oo quraacdu la siimay jiro oo ninkaas uu ku tashi jiray ninkaas maalmaha kamid waxa dhacday asagoo hool maalmeedkiisii ku jira oo hooyadiis xanaanadiisii wada ayaa albaabka waxa u soo garaacay saddex rag ah iyo laba haween ah saddexda rag ah iyo haweeney kamidii dacway qabaan halka haweeneyda kale loo dacwoonayo ninkii albaabka u soo garaacay uu furay waxay dhaheen 4 qof iyo gabadha halka taagan baanu nahay ina dacwad noo kala qaadaan rabnaa ninkii aragtidiisii koowaad wuxuu arkay saddexdii nin iyo haweeney kamid ah labada haween wuxuu yiri niyo xilliga xafiiska afuro imaada war waxay dhaheen xataa qofkii nala dacwoonay wana la socday waka gabadhii kale markuu arkay ninkii go'aankiisa uu bedelay oo shaqadii hooyisu hay iyo wixii dhan intuu iloobay buu yirana bixiya way soo raaceen ilaahay kuma samadiide marka la marayo ninkii miskiinka ah meeshuu joogay ba gabadhii dacwada loo qabay waxa ay ku istaagtay ninkii miskiinka ah lug uga istaagtay ninkii marka uu arkay garsoorka ahaa ninkii u soo laabtay wuxuu maxay u istaagaysaa ninkii uu raali gareeyay wuxuu hilmaamay wixii uu siin jiray uu raali gareeyay waa ka gudbanay ninka soo baahan hooyadiisna awla ku soo tago xanaanadii asoo u dhameystirno ku soo tagay xafiiskii baa la yimid xafiiskii markii la yimid buu wuxuu yiraahday dacwada fura nin kamid ah hadlo wuxuu yiraahday anigu gabadha baa dacwad ka ahay haye maxaa dacwad uga tahay waxa dacwad uga ahay nin hiliblaha baan ahay yiri maanta masaaka maatay wuxuu yiri hilibka gad waxay tiri hilibka gad hilibkii inta u jarjaray way ibobsiiso waxay tiri dhaqso bobsi dhaqso inta aanuna isbobsiinayay baa mid isku jaray marka sababteeda laheedo dacwan ka ahay gabadha waxa la yiraahdaa kii kale wuxuu yiri anigu waxa gadaabo yiri dhuxul ama qoryo saa u taqaaniinba wuxuu yiri way imaanto wuxuu yiri qoryo iyo dhuxul baa rabaa inta u jarjaray u diyaarinayay bay ibobsiiso karkabayso waxay tiri dhaqso faaski baa isku jaraanuna oo lugtay dhiiga ka socda marka dacwada u haystaayo dhiigaas baan ka rabaa nin kale la weydiiyay war adna maxaa ku haya wuxuu yiri alaaba u soo qaadayo inta alaabta u siday way karkabays boobsi xaafadiga gaarsiy bilow markuu wuxuu yiri wixii baa la kufay oo aniga dhan jilbihii iyo wixii dhan muruxsan gabadhii baa xilil adna maxaa ku haya wixii tir qudaar baa gadaayo sidaas oo kale anigana way karkabaysay marka ana qudaartii jarjaraya oo wixii kala habeynaya baa mid isku jiraanuna dhamaantood marka waa wada dhaawacan yihiin waxa la yiri gabadhii wuxuu yiri war haye saan ma jirtaa waxay tir dadkan way adeegayeen waxa la yiri aaway ninkaagi waxay tir ninkayga jooga haloo wacali ninkeedii baa la waan ninkeedii socda imaaday waxa la yiri islaantada dacwo loo qabaa wuxuu islaantada dacwo loo qabaa anina hal igu daro dacwo kale oo anu ayadan dacwo ka ah waxa la yiri war maxaa haye see wax jiraan wuxuu yiri anu islaantan waa jecelahay ayadana way jeceshaa wuxuu yiri waxa uu yiri imaamka masaajidkan magaaladan masaajidka ugu weyn imaamkeeda ah wuxuu yiri xilliga aan salaada soo aadayo wuxuu yiri way soo diyaarisaa way soo soo raxmad gelisaa dhabarkayga soo dhabaxda waxay tiraa nabad ku soo noqo anoo faraxsan baa guriga ku soo taga inta jidka soo socdo wuxuu yiri waa ka fikiraa goorma dhaqs u laabo doonta baa isira heer waxa gaariyo xataa salaadana ku jira salaadii waswaaso oo hadii la ku imaay ayadana ku fikiraayo dhowr ragco loo baahnay dujiyo dadkii marka wuxuu yiri qofkaani cibaadadii fidna ku tahay ha laga furo gebigeed baa laga furo ninkii garsoorka uu yahay madaxiya weynaaday wuxuu yiri balbari kaliya looga dacwoon lahaa waa nin kale looga dacwoon lahaa wuxuu yiri balbari noo imaada bari baa maxkamadda furayna uu tagay ninkii wuxuu u tagay ninkii wax soo baray isla markii intuu shaqadii dhan xiray uu tagay
wuxuu yiri arintaas ay haysata arintii uga sheekeeyay wuxuu yiri anigu waxba kama qaba karee meel kale la raadi waxaan waa iga maskax weyn wuu tago nin caaqil ahaa oo magaalada caaqilkeeda ahaa buu tagay wuxuu yiri caaqilow arintan baa haysata wuxuu yiri marka wuxuu yiri iskoolka dhiganaysay jaamacadda waxa dhiganaysay wuxuu yiri yaa ka caawi jiray casharada iyo waxa aqoonaysa yaa ku sheegi jiray wuxuu yiri hooyaday wuxuu yiri hooyada inta u tagtid su'aashan ayaa kaaga jawaabaysa ninkii wuu soo laabto hooyadiis u imaaday wuxuu u imaaday hooyadiis oo dandarro u dhimatay nadaafad la'aan iyo sariirtii ka dhacdo rafaado intuu garta ka daba wareegay ninkii maamadii maadaama ay dhimatay wuu soo aasayo waa ilaaha oofsaday sidoo kaleeto ninkii kaleeto wax sii jirana maantaas meesha uu fadhi jiray maan laad kuma soo laaban way uu ku baahaday dibna uu ku soo gaaro waa lagu istaago waa ogeyn ninkii wuu soo laabto caaqilkii uu soo laabto wuxuu yiri caaqilow jawaabna ma soo helin hooyadu meedana waa u tagay oo dandarro u dhimatay wuxuu yiri hooyada maxaa u sameey jirtay saas u sameey jiray waa gartay wuxuu yiri jawaabna ma soo helin wuxuu yiri hadaba jawaabtii waad haysataa waxaana ku siiyay hooyada wayba dhimatay yiri say jawaabiisiis wuxuu yiri dadku dacwadu ku qabantay ku imaadeen gurigayga wuxuu yiri mas'uul lagu imaan jiray ma yiri waliba inaan soo raac ma rabine gabadhaas darteed aan soo raaciyo been kuma sheegi karo gabadhu waa qurux badneed wuxuu yiri horta warkow dheh wuxuu yiri dhammaan horta kuwa dacwadayaasha gabadhaas waxba dambiye kama isa gelin oo wax ay ku leedahay lama arko ay waxba kuma laha wala imaamka wala kuwa diila ku imaayo baalka ii sheeg hiliblayaasha qudaarleyda wax hal xabo ay dambi ku leedahay lama arko waa gartay kow dheh wuxuu yiri sababsay ku dhacday wuxuu yiri gabadhaas magaceeda waxa la yiraahdaa adduunyo gabigeedba wuxuu yiri hooyada oo intaas ka ajar shaqaysanaysa oo intaas ka duca dalbaysay yaa maantii ay dhimanaysay oo ilaahay nafta ka qaadayay ayada ku dhaafido yiri sabab waheedo maalintii ugu mudnayd inay ag joogto wuxuu yiri ninkii miskiinka oo intaas sadaqada siinaysay halkii maalin ugu dambayso meesha oo ka tagi lahaa ayada ku dhaafido yiri waxa soo aru yiri afartan nin iyo saddexdan nin iyo haweentan wuxuu yiri ayaguna inta isdhahayn adduunyo buri oo adduunyo qanci oo adduunyo wax ka keen bay dibkan isgaarsiiyeen inta yacni gabadhii qudaartu islahayd dibkan boobsi waxaan ay isjartay kii oo wax qaaday oo islaha hadii la ku maayo dhaqso u geey oo intaas uu isdhahay lacag shaqayso ninka imaamka inta islaha shahwaadkaaga iyo raaxadaada dhaqso u laabatid waxaas dhanba ayaga wuxuu yiri hawshooda ay ahayd inuu wax ay dambi ku leedahay lama arko adeegna wuxuu yiri inta daba ordaysay baad waxa ilowday yiri hooyada iyo wixii aad dhibi jirtay waxaas dhan isku duubo wuxuu yiri waxa la yiraahdaa wuxuu la yiraahdaa yiri adduunyada qofkii raacda wixii wanaaga oo dhan ay ilowsiisaa qofka adduunyada meesha u socoto u raaca qofkii adduunyo qanci maagana ayada dhibaato u geysata dadkaasna dhibaato u geysatay adeegna khayraadkaadii ku dhaafiday marka wuxuu yiri waxa ku helay waa adduunyo gabadhaas quruxda badan oo sharafta lahaydno muuqaalka sanna ka hari lahaa oo ku adkeysan lahaa xafiiskayga soo imaano gabadhan yacni quruxdeedana uu iska indhasaabi lahaa hooyadiisna wuu soo xanaaneyn lahaa sidii wax mari lahaa laakiin muusa sameeyay wixii oo dhan wuxuu siir bal ka gaarsiin marka qof kasto adduunyo raacda oo adduunyo daba orda sidaas u dambaysa wallahi waa shay ka cajiib aad iyo aad u cajiib badan waxa la yiri qofka adduunyada ka jeesta ayada u timaada waa sax qofkii laakiin ku jeesta ka tagta waa sax waxa la yiri adduunyada dadna ilkahay tirtaa aad iyo aad dadna mariyahay tirtaa waa sax waa ilka tirtaa soo wax walba cunay wax macaan wax cun ilka suus waxa bilo dadna mariyahay tirtaayo ayadoo asay u burinayso mustay ay daba taaganta waa dadkan iska duruufaysan adduunyada ay raacdaysan dantooda iska wata waa aragta ma mariyo qurxano ma waa mariya tirtaa dad adduunyo maaha waa sheeko yani xaqiiqada ka turjumaysa haddii aad halkaan nala soo gaarteen sheer gareeyo la wadaaga saaxiibadin si ay maaragtaa ugu cibro qaataan leeg saara muuqaalka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum haddii aad halkaan nala soo gaarteen